waa madal kulmisay madaxda gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed oo majaraha ay u hayso wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed. Kulankan oo lagu soo gunaanadayay shir sanadeedka gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed ayaa ahaa mid afartii maalin ee la soo dhaafay ka socday magaalada Baydhabo. Xafladda xiritaanka shir sanadeedka gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro xildhibaano dhammaan gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka marti sharaf ka kala socotay qaybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed mudane Mustafa Abdullaahi Xasan, gudoomiyaha gobolka Bay mudane Abfatah Maxamed Ibrahim Biyaano ayaa goobta ka jeediyay nuxurka shirkan. fursad oo ka faa'iideysado intooy baan ka mahadnaqay dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobolada ku xigeenada, gaar ahaan gudoomiyaalka gobolka Sadiida gobol qaabkii oo kala shaqeeyay xafladan geegsoon qurux badan tiyo dheel anoo miiloo ka mahadnaqo Ibrahim Najax oo gudoomiyaha Shabeellada Hoos, gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoos iyo ku xigeenshii intii oo fududaayay intii gudoomiyaalka geeg intuu sheegna oo wada xiriirka noo kala shaqeeyay. faa'iidada ugu weyn waa waxa la kala kororsaday intii la isla joogay. waxaan rajaynaynaa in shirarkan oo kala marar badan ay noo dhacaan. weli waxaan aad u codsan lahayn in sanadlaha laga bedelo, maxaa yeelay sanadka aad u dheer yahay, dadkii gaara kala galaayo, qof walba kala lumayaan oo in nalooga soo gaabiyaan aad u codsan lahayn. maxaa yeelay hadda intaan isbaranay isma lahayn beritool iyo beridan baa isbaranaysaan. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane Ibrahim Aadan Ali Najax iyo xildhibaan Maxamed Ibrahim Maxamed Farangle oo kamid ahaa baarlamaanka dalka ayaa wax wanaagsan ku tilmaamay shirkan. waxaan naga go'an khibradii halkaan aan ka qaadanay dhinaca seminaarada, wixii wasaaradda aan ka baranay, fikradaha aan dhaafsanay, horumarka degmada ka socda oo nidaam walba leh inaan insha Allah taala wixii aad dheertihiin oo idinka qaadanaynaa. waxaan ku kabi doonaa shaqada awalba aan ka wadnay gobolkaas Shabeellaha Hoose. waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale nabad inuu Ilaahay ugu gaarsiiyo dalkeenu oo nabad ah, goboladeenu oo nabad ah, dawlad wanaagii oo la daadijiyay oo meel walba la gaarsiiyay. sidaad ka wareysaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Koonfur Galbeed waxay ka soo jeedaan deegaanada ugu wax soo saarka badan Soomaaliya. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed mudane Cabdullaahi Xaaji Xasan ayaa soo xiray shir sanadeedka oo wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed sanadkiiba mar ay u qabato gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed, isagoona shahaado sharaf halkaasi ku gudoonsiyay gudoomiyaasha. farxad gooni ay inta oo keenay aan habnaanada barnaamijkii hadreer ilaa Shambere oo hay isbarashooda hay thaniya isdhaxgalka hay oo ujeedooyinka badan lahay lagu faa'iideystay mahooba degmooyin gudoomiyaasha inay ku faa'iideysteen. ثانيا فرصنا هلان وزيردي oo la shaqeeyay faday degmooyinkaasay kirna waan ku baahanayn inuu ku faa'iideysan aaminsana mayna ballan qaaday insha Allah sida u soo asal gudoomiyaha gobolka Bay iyo xildhibaanka inii una muddadii oo sanadka haytay hagaaban insha Allah oo una ku waalay libilood markii ma aragnay muhiimadda la tirsiimo aragoo haytan inay gudoomiyaasha degmooyinka mar walba la xiriiro inay isla xiriiraan, laakiin kulanku haato inay muhiim ay wasaaraduna saasa qabaan una saasa qabno. Maxamed Aadan Socdaal TV-ga iyo raadiyaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Baydhabo.